بسم الله السلام عليكم وإن سلام أصحابتك soo dhawaada channelkeena Bashra Cooking and Healthy maanta waxaa rabaa inaan idinla share gareeyo cabitaan yar oo aad u fudud oo healthy ah oo yacni hadduu hargab ku hayo energy ku siinayo oo markaa ani cabaayay cabitaanka waa soo geliyay laakiin wuu iga halaabay aada uga xumahay ciladaa ku imaatay waa ka saaray haddana waa kusoo celinaa insha allah marka cabitaankan waxaa waaye marka xanuunsantahay hargab ku hayo energy ayaa ka helaysaa chia seedkana ka sameynaa mirahan aad u fiican yihiin caafimaadka fiber ayay haystaan waa super food waaye marka qofkii heli karo inuu cuntadiisa ku darsadaa fiican markasta uu xisaabta ku darsado uu isticmaalo saa-idna ma layskaga badiyo ilmahana way u fiican tahay ilmaha markuu 1 sano ka weynaado aadaa loo siiyaa way fiican tahay wuxuu ka helayaa omega 3 iyo fiber iyo waxaasuu ka helayaa fitamiinaad uu ka helaa marka cabitaankana sameynaa aada uga xumahay cabitaanka asoo dad badan iyo daawadeen cilad ku imaatay video copyright uu noqday so I don't know cilada meesha ka imaatay waxba cod iyo wax ma kor saarneen marka ma aqaani marka hadda asoo oo sameynaa marka karaali noqda intii daawatay aada uga mahadsantihiin marka waxaa u baahanahay chia seed iyo jablin malabka optional waaye ani hadda malab ma ku darsanayay cause malabka cunoogiisa saas ma u jecli marka waxaa sameyneynaa insha allah iyo biyo kuleel u baahanahay iyo bakeeriga emptiga u baahanahay iyo biyo kuleel oo aadna karkar u ahayn aadna qabo u ahayn biyo oo qandac haddii karkar yihiina waa sugi kartaa intuu kaaga qaboobayo cabitaanka markaa samaysatid marka waa samaysaneynaa insha allah marka waa kana qaada haafkeeda rabaa hadda qaadada marka way yar tahay haaf adi halka qaada camal waaye haafkeeda camal waaye koos wax yara iisoo qaadmay iyo maxaa u baahanahna biyo kuleel marka maxaa u baahanahay saan ina walaaqdid maxaa u baahanahay liin dhanaan u baahanahay cabitaankan wuuna ku caateynaa tabarna waa ka helaysaa energyna waa ka helaysaa qofka markuu hargab qabo waa aragteen cunto ma cuni karo asaga dhan muxuu dareemaa labalabo iyo waxuu dareemaa qof oo xanuunsan waaye kule ani saasa dareemaa hargab hadduu igu dhaco cunto ma jeceli marka biyaha markaa cabtid dhanaankaana dareemaysaa chia seedka markaa cuntidna cunto ma u baahnidbo waxawaaye ayada maasha allah cunto oo kuu noqonayso gaajo ma ku qabanayso energya ka helaysaa soo liin dhanaanta ku daraa haafkaasaa ku daray marka saan la iskugu dhexgelinaysaa maxaa sugaysaa wax yaraa sugaysaa 2 daqiiqo kadibna waa cabaysaa tartiibkaaga u cabaysaa cabitaanka marka wuxuu ku fiican yahay xataa wuu ku caateynaa subax aroorti markaa soo kacdid wajiga la dhaqatid oo soo cadaysatid danahaaga soo dhadhamaysatid adoo waxba cunina lagaa rabaa inaa cabtid kadibna after 30 minutes haddaa cunto cuni kartid waa cunaysaa qofka markuu uu normal yahay oo xanuunsaneen haddaa oo maxaa la dhahaye xanuunsan tahayna sub iyo waxaasaa cabaysaa maraqa isku qasbaysaa wixii aa cabi kartid aa cabaysaa laakiin normally qofkii iscaateynayo waxa fiican 30 minutes ama inuu sugo ama 1 hour after inuu cuntadiisa cuno oo cunto healthy inuu cuno dan maxaa kuu fududaanayo inay caloosha kaa jarmato si caafimaad leh aa ku caatowdid aana ku heshid maxaa la dhahaye calool oo flat iyo caafimaad iyo maxaa la dhahaa jirkaaga nafaqadiisa oo isku dhammaystiran marka intaana idinla sheergarinaya walaalahayga waana ka xumahay videoga intaa soo geliyay aa bixiyey
cause cilada iga imaatay saa hore idinku sheegay meelay ka imaatay cilada waana fahmi waayey marka waa ka tuuray saasa u soo celiyey marka waa arkeynaa kanna wixii ku imaado I hope inay wax ku imaanin marka aad aa u mahadsantihiin supportka iyo dhiirigelinta aad aa ugu mahadsantihiin waa idinka mahadcelinaa mar walba please haddaa cusub tahayna subscribe like iyo share iyo subi commentigan dhankiina waaye dhiirigelinta soo marka sidaas iyo insha Allah see you the next video. Assalamu alaikum.